wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa sheegay in ay ciidamada qalabka sidaan gacanta ku soo dhigeen madaxii amniyaadka gobolka Banaadir u qaabilsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab kaasoo lagu magacaabo Cabdiwaaxid Khaliif Axmed kuna magac dheer Ciise Tarabuun iyadoo laga soo qabtay suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho inuu ugu bishaaray maanta ciidamada qalabka sidaan waxay gaareen horumar ama guul la taaban karo waxay gacanta ku soo dhigeen madaxii amniyaadka ee gobolka Banaadir Cabdiwaaxid Khaliif Axmed oo loo yaqaan Ciise Tarabuun waa la mahdi Allah ugu mahad celinayna marka waxaan ku faraxsanahay in ninkaas uu ahaa ninkii cadawga Soomaaliyeed iyo dad badan oo lagu dilay Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ninkii siin jiray waa ninkii kaliya dhihi jiray qof hadii la dilay ama fasax ugu dambeey dhiibi jiray marka waa ku faraxsanahay ciidamada waa ugu hambalyeena arintaas waxaan rabaa sidoo kale in hoosta ka xariiqdaan dadka magaalada Muqdisho ku nool in howlgaladan ay bilowdeen muddo bil ka hor guulo badan la taaban aan gaarnay sidoo kale wasiirka ayaa sheegay jidadka la xiray in loo xiray xaalad ammaan isla markaana muddo gaaban gudahood lagu furi doono asagoona ka dhawaajiyay in qaraxii maqaayada Peace House aan la soo marin laamiga oo ay soo mareen jidadka sidaas daraadeedna loo xiray iyadoona la filay in dhawaan la furo waxaan u bishaareyn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo in mar dhow magaalada jidadkan waa furi doonaa waxaan u xirnaa amni darteed wax kale looma xirin marka waa la socotaa in qof la badbaajo wax ka wanaagsan ma jiro marka waxaan ka shaqeynayna waa nafta ummadda waxaan ka shaqeynayna waa xoolaha ummadda waxaan u taaganahay waa intaas marka waxaan u mahad celinaa mar labaad iyo mar saddexaadba ciidamada qalabka sido guushay ka gaareen waan lagu daba taagnaan doonaa haddii Ilaahay yiraahdo Rooda Cabdi Xasan Somali News TV magaalada Muqdisho